waxaan doonayaa inaan wax idinkaga sheego dhowr arrimood oo ka caawin karo inaad si fudud uurka ku qaadid ilaa 5 step ayaan ku soo koobi doonaa waxaan rajeynayaa step walba sida ay tahay inaad u sameyn doontaan haddii aad tahay markii kuugu horeysay oo aad channelkeena soo booqato fadlan subscribe sar hana ka ilowin inaad muuqaalkeena like saarto wixii su'aalaha aad qabtid waxaan nagu reebaysaa barta stepka ugu horeeyo lamaanu waa inay aadaan xarumaha caafimaadka si baaritaan loogu sameeyo oo haddii midkiin cilad ay jirto looga daaweeyo wax waliba xal ay leeyihiin oo waa la daaweyn karaa stepka labaad lamaanuhu waa in ay isku diyaariyaan uurka waxa isweydiin mudan sidee uurka la isugu diyaariyaa ugu horeyntii waa ina ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u laabataa oo aad weydiisataa awlaad saalixa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wa qaala rabbukum udcuuni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم دجيه ربكين وحو إذن ليهي ادعوني إبريا أما إويديستا أستجب لكم وإذن كأجيب دونا أو وإذن سي دونا إن الذين كبي يستكبرون إسكوين يسينايو عن عبادتي عبادة أيو ليهي دعاء واقع كمده إن عبادة واي سيدخلون وحي قلعان إن جهنم نار جهنم داخلين ولما ماشي أي كوار دونان ولي waxaan ku guda jirnaa in habka uurka la soo diyaariyo sidoo kale waa in jirka isugu dheeli jirtaa nafaqadii oo u baahnaa sida borotiinka ironta calciumka vitaminska guud ahaan nafaqooyinka u baahnaa haddii uu jirka isugu dheeli tirneen nafaqada iyo vitaminska way adag tahay inaad uur aad qaado sidee isugu dheeli tiri karaa marka nafaqada jirkaaga waa inaad cuntaa cunooyinka jirka sunta ka saara ama antioxidant cunooyinkaas waxaa ka mid ah digirta koostada kalluunka hilibka cad gaar ahaan hilibka kalluunka iyo digaaga sidoo kale waxaa ka mid ah qudaarta cagaaran caanaha basasha iyo aad ay u fara badan yihiin marka waa inaad cuntaa cunooyinkaas waxay sare u qaadayaan fertility-ga ay sare u qaadayaan sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa trans fatska sida cunooyinka la shiilay sandwichka fast foodska fertility-ga ayay hoos u dhigayaan marka fat waad u baahan tahay laakiin waxaa wanaagsan inaad cuntid healthy fat ama fatka caafimaadka leh inaad cuntid ayaa wanaagsan marka health fats waxaa ka mid ah afkaadhadan olive oil ka mid ah waxaa ka mid ah looska cheeska iyo ukunta ayaa ka mid ah sidoo kale waa inaad iska yareysaa cunooyinka carbohydrate-ka sida briiska iyo baastada maxaa yeelay cuntooyinkaas waxay sare u qaadayaan sokorta jirkaaga ayay sare u qaadayaan sidoo kale cunooyinkaas haddii ay ka bataan jirka fat ahaan ayuu u keedinayaa sidoo kale caadadan wuxuu gelinayaa qalqal ayuu gelinayaa marka cunooyinkaas bedelkooda waxaa ku bedelaysaa proteinska ayaa ku bedelaysaa sida ukunta digaaga caanaha iyo digirta waxyaabahaas ayaa ku bedelaysaa sidoo kale waa inaad cuntaa cunooyinka fiber kale ama caloosha socodsiinaya sida sareenka iyo digirta ayaa ka mid ah sidoo kale waa inaad cuntaa vitamin supplementiga waxaa ka mid ah marka raspberry ka mid ah green tea-ga vitamin E-ga vitamin B6 iyo vitamin B2 alifka waxay sare u qaadayaan fertility-ga ay sare u qaadayaan haddii aan u gudbo stepka saddexaad waa inaad ogaataa xilliga ugxaanta la soo deynayo oo jirka uurka uu diyaarka u yahay ugxaanta marka la soo daayo waxay noolaan kartaa 12 ilaa 14 saacadood kaliya ay noolaan kartaa inta yar ee nooshahay haddii ay weydo wax la falgalo ama xawada haddii ay weyso way dhimanaysaa haddii la soo galmoodo kolkii 24 saac ka badan ee ka soo wareegato xilliga ugxaanta la soo daayo way adagtaa marka inaad uur qaadid maxaa yeelay janiski ayaa sii yaraanayo amar alla waa ku qaadi kartaa laakiin janiski ayaa sii yaraanayo sidoo kale haddii ay galmadu dhacdo eeda ugxaanti aan la soo deynin xabadii aabaha ama biyo aabaha inta aysan ugxaanti aadin ayay dhimanayaan iyana waxay noolaan karaan 1 ilaa 6 maalin ayay minka gudihiisa ku noolaan karaan marka intay sugayaan haddii marka inta ay minka ku sugayaan haddii 6 maalin ama ka badan ay noqoto marka way adag tahay inay uur qaado meesha ayay ku dhimanayaan maadaama ay noloshooda ama life span-kooda ay yar tahay ugxaantii iyo xabadii waxaa wanaagsan inaad ishaleeshiisid xilliga ugxaantii la soo daayo iyo xilliga aad waqtiga aad qaadanaysid waxaa isweydiin mudan sidee ku garan kartaa xilliga ugxaantii la soo daayo haddii aadan ogeyn
maalinta iyo taariikhda aad heshid dhiigga caadada way adagtaa marka inaad ogaatid xilliga ugxaanta la soo daayo maxaa yeelay dumarku way ku kala duwan yihiin inta ugu badan waxaa u dhaxaysa 28 labada caado waxaa u dhaxaysa 28 maalmood ama 28 maalmood kadib ay caadadu helaan way ka yaraan kartaa oo 21 way noqon kartaa sidoo kale waxay ka 28 way ka badan kartaa ilaa 40 ay gaari kartaa marka wixii 40 ka badan 21 na ka yar waxa way marka cilad ayaa jirta markaas sidee ku garan kartaa marka maalintii iyo taariikhda aad heshid caadada waxa soo qaadanaysaa qalin ayaa soo qaadanaysaa waxa qoraysaa maalintii aad heshid caadada ayaa meel ku qoraysaa maalintaas waxay ku noqon doontaa maalinta ugu horeeya oo aad dhiig heshid ayay ku noqon doontaa markaad qortid sidoo kale xilliga kale aad dhiig heshid iyana meel ayaa ku qoraysaa marka inta u dhaxaysa ayaa xisaabinaysaa tusaale ahaan dhiigga waxa heshay January 1 ayaa heshay meela ku qortay sidoo kale dhiigga markaa ka meeratay dhiigga kale asagana wuxuu ku imaaday 31 January ayaa heshay marka iyana meel ayaa ku qoraysaa marka inta u dhaxaysa ayaa tirinaysaa 30 January 31 January waxa u dhaxayso 30 maalin ayaa u dhaxeedo marka gabadhan 30 maalin kadib way helaysaa wareegeeda sidaas ay ku ogaatay marka tan waxay ka saacidaysaa xilliga ugxaanta la soo daayo waa ku ogaan kartaa sidoo kale waxay ka saacidaysaa marka inuu dhiigaaga oo qalqal oo ku yimaado haddii 30kaas beri oo ka yaraado waa dareemi kartaa inay cilad ay kugu timid haddii uu ka batan waa dareemi kartaa okay mar haddii aad garatay taariikhda iyo maalinta aad heshid wareegaaga ama dhiigga waxa ku haray inaad fahanto xilliga ugxaanta la soo daayo mar walba wareega ama intu maalin u dhaxaysa labada caado ayaa waxa ka jiraysa 14 ayaa ka jiraysa tusaale ahaan gabadhii aan soo xisaabinaynay oo January 1 ilaa January 31 u dhaxaysa 30 beri ayaan tusaale ku soo qaadanaynaa waxa ka jiraysa idin dhahay 14 marka 30 waxa ka jiraysa 14 ka jir waxa noo soo baxaysa 16 kaas marka waxay ku muujinaysaa inuu dhiigeeda kale uu ka dhiman yahay 16 ayaa loo soo deeyaa ugxaanteeda haddii tirada ku soo baxdo waxay ku sheegaysaa dhiigga kale inta ka dhiman marka waxa wanaagsan inaad waqti la qaadatid maalinta ugxaanta la soo daayo oo ku aadan maalinta 16aad iyo labada maalin kale ka dambayso 17 iyo 18 tusaale kale gabadhan wareegeeda waxa u dhaxaysa 28 maalin waa sida dumarka u badan yihiin mar walba waxa idin sheegay waxa ka jiraysaa 14 ayaa ka jiraysaa 28 14 ka jir 14 days ama 14 maalmood ayaa noo soo baxday waxa 14 ayaa loo soo deeyaa ugxaanteeda 14 markay tahay wareegeeda kale ama dhiigga kale oo soo socda waxa ka dhiman 14 maalmood marka waxa wanaagsan inaad waqti qaadatiin maalinta ugxaanta la soo daayo oo ay ku aadan tahay maalinta 14 ilaa iyo labada maalin ka dambayso oo 15 iyo 16 tusaalihii ugu dambeeyay gabadha 21 wareegeeda aad ay u yar yahay 21 maalin ayaa u dhaxayso ama 21 maalin kadib dhiigga mar bay heshaa waxa mar walba waxa idin dhahay 14 maalin ayaa ka jiraysa 21 14 ka jir waxa noo soo haraysa marka 7 maalin ugxaanteeda waxa la soo deeyaa maalinta 7aad ayaa la soo deeyaa waxa wanaagsan idin dhahay dhiiggeeda kalena waxa ka dhiman 7 beri ayaa ka dhiman marka waxa wanaagsan inaad waqti qaadataa maalinta ugxaanta la soo daayo oo ku baagan tahay maalinta 7aad iyo labada maalin ka dambayso oo 8aad iyo 9aad waxa jira calaamado lagu garto in ugxaanta ay diyaar tahay oo markaas faxlista ay diyaar u tahay calaamadaas waxa kamid ah jirkaaga uu noqdo kuleel waxaad moodaa qof xamad ay hayso ama qandhay hayso kale ayaa lagu moodaa sidoo kale xagga hoose xubinta waxa ka arkaysaa xilliyada meeranaysid wax aad oo jiijiid maayo oo aad moodid beedka ama ukunta dhexda wax ugu jiro kale aad ku arkaysaa sidoo kale waxa badanahay rabitaankaaga oo waxa jeclaysanaysaa inaad odayga aad ugu dhabaatid haddii intaba aad ku dareemi weysay waxa jira wax lagu magacaabo ovulation predator kit ayaa jiro farmashiya ayaa lagu iibiyaa waa geed yar waa qalab yar waaye wuxuu ku sheegayaa xilliga ugxaanta la soo deeyo ayuu ku sheegayaa haddii aan u gudbo stepka afraad lamaanuhu waa in ay waqti badan qaataan si jaaniskooda u bato qofka safar ku maqan ama waqti yar isla joogtaan way adagtahay marka inaad jaaniskiina u bato ama uuraadkaadid way adagtahay maxaa yeelay waxa suuragal ah xilliga isla joogtaan in ugxaantii ay diyaar ahayn ama la soo deenin ayaa diyaar waxaan u gudbayaa stepka shanaad oo ah stepka ugu dambeeya oo aan maanta ka hadli doono lamaanuhu waa in ay qaataan talooyinkan waa inaad walwalka ama stresska iska yareysaan gaar ahaan hooyadu waa inay walwalka iska yareysaan sidoo kale lamaanuhu waa in ay jimicsi sameeyaan
maalintii 1 hour oo kale in ay exercise sameeyaan ayaa loo baahan yahay sidoo kale midkiin haddii uu isticmaalo muqaadaraadka sida shiishada sigaarka qaadka iyo qamriga waa inaad iska daysaan sidoo kale waa inaad kafeega oo kale iyana waxa ku jira maadada caffeine-ka marka iyana waa inaad iska yareysaan sidoo kale waa inaad qaadataan hurdo idinku filan ugu yaraan habeenkii waxaa loo baahan yahay inaad qaadataan 8 saacadood haddii hooyada ay tahay qof buuran waa inaad miisaankaaga iska dhintaa sidoo kale haddii uu underweight tahay ama miisaankaaga uu hooseeyo way adag tahay inaad uga qaadin waxaa loo baahan yahay inuu jirkaaga isku dheelitirnaado oo BMI-ga ama dhirirkaaga iyo miisaankaaga inuu isla egyahay ayaa loo baahan yahay BMI-ga haddii aad doonaysid inaad ogaatid BMI-gaaga hore ayaan uga soo hadlay channelkayga waa ka heli kartaa in halkaas ka daawo